السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا كحرن جنل جينا جنل كحكمة تيوب يوتيوب كسر هذا مقال muuqaalkan yar ee kooban waxaan ku eegi doonaa qiso yar oo kooban oo ku dhacday libaax isagoo yar qoorta la galay dabin taasoo ku kaliftay inuu ka go'o guud ahaan cunitaan iyo waliba cabitaan siligaa qoorta uu la galay awgeed waxaana dhibaatada u geystay qolo ugaarsato ah oo isku dayay inay ugaarsadaan lama garanayo inay dabinka u dhigteen libaaxa laftigiisa iyo xayawaanada kale laakiin dabinkaas waxa uu haleelay libaax yar oo cagabaruura oo dhal ah muuqaalka intaan u guda gelin fadlan haday tahay markii koowaad ee soo boqoto channelka subscribe saar videogana like saar si aan u soo gudbino muuqaalo tayo leh qisadani waxay ka dhacday kaymaha Mikimi ee dawladda agagaarka webiga Roha ee dalkaasi Tanzania marka libaax yar oo dhala oo ku dhacay dabin ay dhigteen qolo ugaarsato ah dabinkaas marka uu madaxa la galay dadaal badan ayuu u galay si uu iskaga furi lahaa dabinka oo ahaa mid lagu qabanayo waxa soo gala ayaa libaaxii ugu dambeyn wuxuu ku guuleystay inuu ka baxo dabinka laakiin qoorta waxa kaga hadhay bir wareegsan oo ciriiri ku noqotay qoortiisa wuxuuna si hore ugu dhaqsaday si uu ugu tago ehelkiisii libaaxyada kale ahaa si uu uga dalbado gargaar iyaguna markay arkeen waxay u muujiyeen tacaatuf badan laakiin maxay u qaban karaan waqtigu socdaba waxa uu bilaabay libaaxiina inuu koro birtiina ay ciriiri ku noqoto iyadoona isku bedeshay dhaawac weyn waxayna taasi sababtay inuu ka go'o cuntada iyo waliba cabitaanka maalin dalxiisayaal soo booqday agagaarka meesha uu ku dhaawacnaa libaaxaas ayaa waxay arkeen nasiib wanaag libaaxaas dhibaataysan waxayna qisadaas ku faaftay dadkii deganaa agagaarkaas oo dhan waxaana loo soo tartamay sidii loogu fidin lahaa gargaar laakiin taasi mayna ahayn wax dhib yar waayo faamilkiisa kale ee libaaxyada ayaana ogolayn in loo soo dhawaado taasoo ku kaliftay dadkii gargaarka bixinayay mid ku adkaata siday u caawin lahaayeen libaaxaas dhibaataysan ugu dambeyntiina waxaa gargaar loo diray hay'adda ilaalinta deegaanka iyaguna si dhaqso waxa uu soo abaabuleen koox u diyaar siday u caawin lahayd libaaxa yar ee dhibaataysan muddada dheer waxayna ku guuleysteen inay kooma geliyaan kadibna si dhib yar uga saaraan birtiga haysatay qoorta inkastoo dhib ahayd haddana ugu dambeyntii waxay ku guuleysteen inay ka furaan birtii dhibaataynaysay ee qoorta ka haysatay libaaxa yar ee dhibaataysan waxa ayna sheegeen in ka furidiisu ayna ahayn mid dhib yar waayo maadaama libaaxu koray waxay ahayd xaaladii ugu dambeysay oo waxa macquul ahayd in haddii gargaarku uu soo raagi lahaa libaaxaas oo u dhiman lahaa intaa kadibna waa la sii daayay libaaxii waxaana la sheegaa in booskii lagu daweeyo uu ku soo noqdo mar walba taasoo u muuqata inuu mahadcelin ka bixinayo gargaarkii loo fidiyay usbuuca yarun dhexdood libaaxii waxa uu bilaabay inuu si fiican u koro la ekaadana kuwii qayrkiisa ahaa qisaduna waxay ku dhammaatay si farxad leh iyadoona na tusaysa inay weli jiraan dad u diyaara inay caawiyaan xayawaanada si kastay ugu noqoto halis horena waxaa loo yidhi qofkii dhulka ku naxariista ayaa samada lagu naxariistaa muuqaalkeenan yar ee kooban intaas ayuu maanta ku egyahay insha allah muuqaalo tayo leh oo laga shaqeeyay ayaa insha allah in the way let's go peace red cups my party hat on you my party favor